daroonta Itoobiya oo burburisay kaydadkii hubka ee TPLF ee agagaarka caasimadda Tigreeg ee Maqale. duulaan ballaadhan oo ka dhan ah awoodda TPLF ay toddobaadkan xoogga saartay dowladda Itoobiya iyo xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka TPLF iyo ciidanka Itoobiya ee bishan ka bilowday xuduudka Suudaan ee magaalada Shareero ayaynu tabintan ku dul istaagaynaa. waxaan ahay Axmed Awga, halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal. dagaalka ay horaantii bishan jabhadda TPLF iyo xulafadoodu ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ee Shareero ee dhaca xuduudka Suudaan ayaa maraya meel xasaasi ah. bilowgii toddobaadkii tagay waxay ciidanka dowladdu soo bandhigeen maxaabiistii ugu badnayd hub noocyo badan iyo saldhigyo ay ka qabsadeen TPLF, waxaana kolkaas bilowday howlgal ka dhan ah awoodda militari ee TPLF oo ay bilowday dowladdu muddo ka badan hal toddobaad oo howlgalkaasi si joogto ah ugu socdana. waxay dowladdu beegsatay magaalooyin iyo goobo badan oo ay ku sugnaayeen TPLF, inta badanna waxaa si daran loo burburiyey kaydasha hubka iyo xeryaha ciidanka TPLF iyadoo dowladdu si joogto ah u adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah. maanta warar ka imaanaya agagaarka magaalada Maqale ee caasimadda TPLF waxay sheegayaan in daroonta Itoobiya ay saaka ku waabarisatay oo burburisay saldhigyo iyo bakhaaro kaydadka hubka ah ee TPLF. sida ay ku warantay idaacadda BBC laanteeda afka Tigreeg ku hadasha, waxay shaaca ka qaaday burbur baaxad leh iyo garaac daran oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka ah ee dowladdu ay saaka ku beegsadeen bakhaaro hub oo ku yaala deegaano dhaca agagaarka Maqale. weli dhinaca dowladda iyo TPLF midkoodna war rasmi ah kama soo saarin duqeymaha halkaas ka dhacay maanta. dadka deegaanka ayaase warbaahinta u sheegaya in ay maqlayaan jug xoogan iyo gantaalada ku dhacaya agagaarkaas. tan iyo kolkii la kala seexday heshiiskii Pretoria 2020 waa markii ugu horeysay ee ay daroonta dowladdu ku dhawaato ama meel u dhow ay bartilmaameedsato magaalada caasimadda oo ah Tigreeg ee Maqale yiraahdo ahna saasoo kale saldhigga iyo xudunta ay ka duulaan TPLF. tan oo ka dhigan in duqeymuhu ay ku sii siqayaan xagga Maqale, inkastoo ay muuqato in ay dowladdu ilaalinayso shacabka Maqale oo aan la rabin dhibaato dadkaas gaadha. duqeymaha saaka ka dhacay agagaarka Maqale waxay ku soo beegmayaan xilli maanta lagu jiro kulankii guud ee 4,000 ee ergo ahaa ee go'aanada wadahadalka qaran lagu soo saarayay. ishana lagu hayo war-saxaafadeedka iyo go'aanada ka soo baxaya wadahadalka qaran ee bisha ka socday Addis Ababa. wixii ku soo kordha xaaladahan mar walba kala soco JTN. like dheh muuqaalka, subscribe tana ka iloobin YouTube-keena. aad baad u mahadsan tahay. waa Axmed Awga, nabaday.